mid ka mid ah caqabadaha dhalinyarada ka haysta inay si online ah ugu shaqaystaan xirfadooda programmingku waa inaysan in badan oo ka mid ahi aqoon u lahayn version control. haddaba waa maxay version control, sidee loo isticmaalaa, maxay yihiin muhiimadiisu? su'aalahaasi kuwa kale oo faahfaahsan ayaynu muuqaalkeena kaga jawaabaynaa. kusoo dhawaada dhalinyaro. ugu horeyn, caqabadaha version control xalinayo waxaan ka soo qaadaynaa 3 ka mid ah. aynu tusaalayno si aad si fudud ugu fahmi karto. Okay, ka soo qaad shirkad ay u shaqeeyaan dadyo kala duwan oo ku kala sugan goobo kala duwan, sida branches kala fog oo kale, ama sida casrigan loo shaqeeyo ee ah in qofku gurigiisa isagoo jooga shaqadiisa qabanayo. haddaba shirkadaasi tusaale ahaan oo kale waa shirkad software development ah oo ka shaqeynaysa horumarinta software-ada oo kale. haddaba sideed ay dadyogaas kala fogi uga wada shaqeyn karaan hal project oo mid kasta oo ka mid ahi leeyahay qayb gaar ah si marka la isku wada daro uu noqdo project-kii la rabay. caqabada ugu koowaad ee xalinaya waa taasi. hadhow baan arkaynaa sida uu xalinayo. caqabada kale ee iyadana uu xalinayo version control waa in marka la sameynayo project qof kastaana qaybtiisa dhameeyo. waxaa dhici karta khaladaad sida inuu qof ka mid ah delete gareeyo qaybtiisa oo kale, ama inay si kalaba u dhacaan sidaasna uu project-kii ku istaago. caqabadaasna version control uu xalinaya isagoo sameynaya backup. mid kale ayaa iyaduna jirta oo ah la socoshada dhaqdhaqaaqyada koodhiska, yacni marka error la xaliyo kale ama marka qayb cusub uu soo daro koodhkii iyo cidda ku soo dartay. haddii la rabo in version-kii hore dib loogu noqdo ama dib loo isticmaalo iyo waxyaabahaasi oo dhan ee ku saabsan la socoshada koodhka ayuu noo qabanayaa version control. Okay, haddaba waa maxay version control? version control waa system inoo record gareeya ama inoo save gareeya isbedelada ku dhacaya file ama files badan oo isku xiriirsan. waxaan inoo sameynayaa versions kala duwan oo intuu isticmaali karno. waxaanu si fudud ugu xidhayaa team si hal project uga wada shaqeyn karaan iyagoo kala fog. Okay, sawirkayna fiiri si aad wax badan si fahanto. halkan hoose waxaa inoo yaala 3 developer. kan waa developer, kan waa developer, kan waa developer. halkanna waxaa inoo yaala server. waxaan serverkaas ku magacaabaynaa repository oo kale. repository waa meesha ay iskugu imanayaan dhammaan fileska uu qof kasta oo developerska ka mid ahi soo geliyo. haddaba developer kasta wuxuu samayn karaa inuu sameeyo commit oo ah inuu qayb cusub soo daro koodhka. qaybta cusub marka lagu soo daro ee repository ku daro qof qayb cusub, qaybtaas cusub waxay nagu save garaysaa repository. waa sidii oo game oo kale. tusaalaha markaad game ciyaarayso ee aad ka baxdo kadibna aad hadhow halkii ka sii wadato oo kale weeye. markaad commit samayso waxaad save garaynaysaa waxyaabihii aad soo qabatay oo dhan. waxaad ku save garaynaysaa repository-ga oo ah meesha la isku wada keenayo fileska. kadib markuu developer-ka waa sameeyo, ka labaadna sameeyo, halkaas uu gelinaya, ka saddexaadna marka sameeyo halkaas uu gelinaya. intaas isla fahnay commit. update-na waxa weeyaan in update la sameyn karo oo yacni la isticmaali karo version-kii ugu dambeeyay ee ku urursan yihiin waxyaabahaas oo dhan. marka commit waxay noqonaysaa checkpoint oo kale noqonaysaa oo yacni waa version ka mid ah project-ka. iminka tusaale kale xoreyna version-kii ugu horreeyay waxaa markii la dhisay qaybta front page-ka website oo kale ayaan sameynaa. front page marka la dhisay waxa weeyaan waa version ay noqonaysaa oo front page-kaas oo keliya markaan sameynay. kadib update ayaan sameynaa oo waxaan ku daraynaa buttons kale ku daraynaa ama pages kale ku daraynaa. sidaas oo kale ayuu soconaya. kadib haddii rabnaa dib u noqono markii la sameeyay qaybta front page-ka ah oo keliya aan wax kale la sameeyay si fudud ayuu noqon karnaa. waayo commit ayaan sameynay markii aynu qaybtaas maraynay way noo save garaysmay. intaas isla fahanay. Okay, sidaas ay dhammaan dadka oo dhan ku wada shaqeyn karaan oo ay teams badan ay ku wada shaqeyn karaan oo qof kastaaba qayb soo gelinayo. kadibna waxaa la arkayaa hebel ayaa qaybtaas sameeyay oo xilligaasna uu sameeyay. sidaas ayaana project-kii si fudud loogu develop garaynayaa. waxaa kaloo inaga caawinaya inaysan dadku isku khaldamin oo qofba wax iska keenin. hebel waxaa loo dirayaa qaybta imka front page-ka oo kale, kadibna uu soo diyaarinaya, halkaas uu soo gelinaya. kana waxaa loo dirayaa kale qaybta back-end oo kale uu soo gelinaya. sidaas oo kale ayaa qofba shaqo loogu assign garaynaya oo shaqo uu qabanaya. haddaba waxaan samayn karnaa waxyaabaha kale ee samayn karnaa wax ka mid ah inuu sameyno branch. branch waxa weeyaan marka uu koodhkii noo dhammaystirmo ee buuxsamo project saa nagu dhammaystirmo waxaa laga yaabaa inaan u baahanayno feature cusub ku darno kale. haddaba featureska cusub si aynu ugu darno ma habboona inaynu isticmaalno project-kii dhammaystiri karnaa. waayo waxaa laga yaabaa inay errors kala gelino aynu caqabad labaad dib u abuurno oo aynu dib u dhac ugu imaado. markaas si aynu taa u xalino una isticmaalno project-kii dhammaystirnaa si aynu ugu tijaabino featureska cusub ee soo darnay waxaan sameynaa qayb cusub lagu magacaabay branch. branch waa copy-gii project-ka oo dhan. project-ka copy-giisii ayaan dib u isticmaalayna. markaas halkaa branch-gaas aynu ku tijaabinaynaa waxyaabaha cusub ee aynu ku soo darayno. Okay, saddexdaas concept ayaa ugu muhiimsan inaad ka fahanto marka ugu horeysa version control-ka.
haddaba version controlska la isticmaalo waxa ugu caansan Git platformska loogu isticmaalno waxa ugu caansan GitHub waa laga yaabaa marar badan inaad maqashay GitHub haddaba dhalinyaro inkastoo caqabadu iska badan yihiin intaan arkay tan ayagu mudan in la xalliyo waayo waxaad arkaysaa qof dhalinyar ah oo waqti badan ku bixiyay inuu programming barto ama web development ha ahaado ama qayb kale ha ahaadee oo laga yaabay in weliba si iskii ah isku baray oo waqti badan uu ku bixiyay haddaba marka qofkaasi helo fursad uu si online ah uga shaqaysan karo caalamka waxaa la kulmaysaa caqabada ah inaan isticmaali karin Git kadibna waxay noqonaysaa in dib ugu noqdo oo dib u soo barto Git marka xilli hore iska baro version controlska khaasatan Git iyo GitHub mana ahan kaliya programmingka version control waxyaabo badan ayaa loo isticmaalaa start designing waa loo isticmaali karaa qoraalada iyo researchada waa loo isticmaali karaa iyo waxyaabo kale oo dheeriya muuqaalkeena maanta intaas ayuu ku egyahay waad ku maasantahay dhamaadka muuqaalka nala soo gaadho fadlan muuqaalka like saar siina sheer garee si uu gaadho dhalin badan mahadsanid